Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa akhyaarey inaan maanta waxyaalo muhiim ah nii sheego oo mataqaanaa laga yaabaa inaad qaarkiin aad ogtihiin qaar kale oo badanna aysan ogeyn. Macnaha mar alla keeno ood waxbarashada aad dib ugu laabato waxaa qasab kugu noqonaya inaad wax akhriso ood wax badan barato ood wax badan aad fahanto. Sidaas daraaddeed talooyin baa la isweydiiyaa waxaa la niyow sideen wax badan ku fahmi karaa wax badan waqti badan anoona ku luminin aan mataqaanaa maskaxdeyda u noqon kartaa wax weyn. Sida wax dad badan hore niigu sheegayna maskaxda bini'aadanka waa sida muruq oo kale. Muruq haddii laga dhaqaajiyo wuu weynaanayaa wax badan buuna qaadaya. Tusaale ahaan marka ugu horeyso gym ka tagto waxaa laga yaabaa inaad 10 kiilo ya Allah kor ugu qaaddo ama aadan qaadi karinba. Laakiin haddaad ku sii jirto birihii sii qaaddo muruqaadi baa sii weynaan wixii aad qaadaysana wuu badanayaa. Sidaas oo kale ayay maskaxdan u samaysan tahay. Haddaad weligaa Allah waxba ku samaynin damiin baad isku noqonaysaa inaad tahay damiin baad isku arkaysaa. Laakiin haddaad bilowdid inaad wax akhrisid waxaa weeye mar walba wax akhriska sii wadid xoogaa maskaxdaada way sii furmaysaa wixii hore information-kii hore qaadi kartay ee xareyn kartay ee xifdin kartay wuu sii badanayaa. Laakiin haddana waxaa jira waxyaalo ku caawin karo waxaa ka mid ah inaad hurdada badiso waxyaalahaas oo kale. Laakiin arrintaan rabo inaan ka hadlo arrintaaba kuma saabsana. Waxay ku saabsan tahay tusaale ahaan waxaad gelin kartaa ChatGPT-ga ama meelahaas oo dhan baad laga yaabaa inaad geliso haddaad promptiga sida saxda u qorto qoraalkaad qorayso si saxda u qorto ood ku tiraahdo tusaale ahaan oo kaleeto waxaan doonayaa inaan wax badan fahmo oon wax badan xifdin karo oo maskaxdayda weynaato iga caawi tusaale ahaan runta boqolkiiba boqol ma sheego laakiin dee macluumaad iyo wuxuu soo akhriyaa warbixinno uu dad kale ka soo xaday iyo waxyaaluhus ku akhrinaya oo caqligiisa kama keenayo wax dad dhaheen buu kuu keenaya. Marka cilmi baarisyo waxaa lagu sameeyey in mataqaanaa qofka uu mar kasta luuqad hor la barto eraya hor la barto ee maskaxdiisa wax badan ku kordhinayso wixii ay qaadaysay ay sii badanayso. Laakiin waxaa cajiib ah wuxuu kuu sheegaya oo ku leeyahay waxaad barataa carabiga oo isku day inaad maalin kasta carabiga aad akhriso ood eray xifdiso si kale haddaan u dhigo oo aniga dhinaca kale aan ka raaco haddaad maalin walba ka waran aad quraanka akhriso quraanka haddaad akhriso quraanka aad mataqaanaa barato quraanka aad mataqaanaa isku daydo inaad aad ka xifdiso aayad haafkeed sadar wax un aad ka xifdiso maskaxdaada aad ba u weynaanaysaa. Waa midda keenaysa in adduunka uusan jirin ama yaab ama aamin ama aaminin in buug kaloo la xifdisan yahay buu jirin oon ka kitaabka quraanka kaliya la xifdisan yahay. Taasoo ku tusaysa maskaxda bini'aadanka hadday rabto in ay wax badan fahanto oy fahmo xumada ka baxdo oo dadkan luuqadda baran la oo wax baran la oo shahaado soo qaadi la ee mataqaanaa mar walba ka calaya aniga damiin baan ahay waxa kaliya ay wax ku fahmi karaan waxay tahay in kitaabka quraanka soo qaadaan inaad maantaba bilowdaan inaad akhrisaan dantiina aakharoon la gaarin mataqaanaa erey kasto oo mataqaanaa bismillah bacda waxaad ka helaysaa 10 ajir ajiradaasoo la gaarin maskaxdaada kugu weynaanayso. Sidaas daraaddeed fadlan haddii aad doonayso inay fahmadaada kororto kitaabka quraanka maalin kasta akhri isku day inaad suuradaha yararka xifdisid sii wadid maskaxdaadaa badanayso fahmadaadaa badanayso dantaadaa ku jirto dhinaca diinta oon ognahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala soo dejiye oo ajirkeeda aad wada garanaysaan oo aakhiro wuxuu uu mataqaanaa quraanka kuu samaynayo iyo mataqaanaa inuu kuu shafaaco qaadi karo waxaasoo dhan idinka wada garanaysaan haddaad rabtaan inaad shahaadooyinka aad dhibay aad soo qaataan haddaad rabtaan inaad waxbarasho dib ugu laabataan haddaad rabtaan in aad mataqaanaa hore u socotaan ilaanay wax haddaan la akhrin hore loo socon maayo ma jirto nin af Soomaali ku hadlayo af Soomaali shahaado ku qaatay ma jirto waa inaad buug kala furtaa. Sidaas daraaddeed haddaad rabtaan inaad fahmadiina barato waxaan nigu soo koobayaa diinta dib ugu laabta salaada tukada haddaad salaad tukanin dad badan baa laga yaabaa inay salaad tukanin laakiin waxaa sirta la helay inay tahay inaad quraanka akhrisaan maskaxdiina way weynaanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maskaxdaada weyneynayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fiidiyowga nugu dheeray walaalkan Xasan Jiid.